xildhibaanada wasiirada ciidamada qalabka sida bahda saxaafadda ururka dhalinyarada ururka hooyooyinta culimada qof walba mas'uulka iyo mas'uuliyaddu ku fadhiyaan ku salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi dhaxda sharafta leh oo noo timid oo ka socota dawladda qof walba mas'uulka iyo mas'uulku ku fadhiyaan ku salaamayaa salaan labaad oo diiran oo ka soo goday kashiya laabta oo ku xusan gobolka qaybihiisa kala duwan bulshadana idinku salaamayaa salaanka bacdi laga hadlayay dawladda in la raaco dawladda awalba waan raacsanayn ma aanu diidanayn ciidamadeedii baa jooga waan raacsanayn reegada haddaan nahayna annaga dawlad markii la sheego waa qaalinka ii soo qaba xataa haddaan wax ku qabin waa iska raacna waayidna madaxweynaha gogosha aan u dhignay abaar baa galay maalinkii la magacaabay wuxuu yiri gada waan imaanayaa ugaaska nagu la soo hadlay gada waan u soo socdaa buu yiri gogoshii aan fidinay abaar baa galay geeliyaan gadnayna wuu dhalay horta gado lama rabay rabbi baa rabaa ragganaga hadda yimidna kolley run baan u sheegayaa runtu waxa la yiri dadka runtu way kharaar badan tahay dadku way ka qoslisaa arrimo idinka xayiran inaad xaaranaysaan baan hadda warka dadkan been bay idin sheegeen dawlad baan rabnaa iyo waxbaan raacsanahay waxaas war dawladda waligeena waa raacsanayn waana ayisanayn xildhibaan iyo wasiir ama Jubbaland ha u dhasho ama gada ha u dhasho oo abaar ka hadlay oo jira ka hadlay oo buundadii ka hartay oo nala ooyay oo noo yimid ma jiro 12 sano aan taagnayn taalada oo qalabyo wadanay sidii wax waalan isbedel doon baan u taagnay qof inta noo cabtay yiri bulshadiina loo magacaabay maxaad ka cabanaysaan oo noo yimid ma jirto ama federal ha ahaado ama state-ka aan nahay ha ahaado wax inta noo yimid le war bulshadan walbaalana oo qoraxda taagan oo qalawlaha wadato maxaad ka dhibsanaysaan oo maxaad ka cabanaysaan wax noo yimid ma jiraan saaka oo hawshii dawladdu ay gabagaba tahay oo 4 sano iyo bar la marayo sanad iyo bar ay u dhiman tahay in la yiraahdo waxba la idin qabanaya horta aniga fakar ahaan boosteey ahaan ama ka naxa ama ka farxee waxaan u arkaa waxaan waxba ka jirin oo shimbirayo weesa haddaad wax noo qabanaysaan buundooyinku sanad iyo 5 bilood bay go'an yihiin mas'uulkii loo doortay oo u dhaartay dalkiisa dadkan batiin maydan iman waxna uma idan qaban wax agabana uma idan keenin taas halkaasaan uga baxay dadka mas'uuliyiinta gada u dhashay midda dawladda ay soo hartay dawladda waa taageersanahay waana raacsanahay waana dawladdanadii mana mucaaradayno sharaf bayna leedahay laakiin waxaan ka tabanaynaa wixii xaquuq ahaan ku lahayn way naga duudsidi anaana biyaaminaya dadkaani waxay idin sheegayaan waxba kama jiraan ana wax dhaba idin sheegaya madaxda idagaha fura haddaad qaadataan nasiibkiin haddaad diidaan nasiibkiin sababtoo ah dawladdu inayna rabin waxaan ku cadaynayaa xaduudaha ciidankii ilaalinayay iyo hubkii la keenay sidii ayaan Soomaaliya ka mid ahayn baan laga qaaday oo caws weyna la geeyay wiilashanadii iyo teknikadii ilaa hadda meel ay jiraan ma ogin 7 jeer baa gada ciidan laga qaada sidii ay ahaan jirtayna qaranku markuu ciidan qaadayo meel ciidan ka qaadayo ciidan kale ku soo bedelaa wiilashii ka hawatay oo arigay dahabkanaga aan ku gadanay oo gadan noo qabtay qarannooma qaban wiilashanadu noo qabteen cid kastaba ha ahaateen wiilasha Soomaaliyeed noo qabteen 7 jeer baa gada laga qaada ciidanna looma keenin marka dawladda ciidankanagi way naga gurtay oo in cadawguna qabsaday ku tala gashay ciidan markii laga qaaday sida sharcigu ahaan jiray ciidan baa lagu soo bedeli jiray ciidanna looma keenin ciidankanagi iyo wiilashanadina la ka qaadiyaa kii dahabka ku gadanay waxaan leeyahay dawladda haddaad wax nooga wadaan oo hadda gabagaba tahay wax nooga wadaan agab ciidan iyo agab shacab midna kuma arag haddii ay tahay mashaariicda jidadka la dhisayo hadday tahay dhaqaale kobcinta hadday tahay darajo waxa weeye ciidamadana halkaas wiilasha joogo waa go'doon sida nagar dhashay hoganayaan ciidankuna wuxuu moraal ku yeeshaa ciidanku ma xumaado inuu askari madaxdiisu xumaato moogi darajo ma helo oo wax dalcaada ma helo gobolka gado maalin walba la dalcaad baa soo marta wasiiradanada iyo madaxdanada iyo xildhibaanada iyo sanataradana baatiin hadday hooyooyinkiin been idin sheegeen habarta ma jeerteen been idin sheegay dalcaad idin kama hayno dawladda mashaariic kama hayno maxay dawlad noogu tahay buundooyinka nigba go'an haddaad ka ardhamaaday xoqanaysaan aad leediin waxba la idin qabanaya war waxba nooma qabanaysaan been noo sheegina Axmed Isteed baan la nahay deegaan baan la nahay geelini waxay daaqayaan BB1 iyo cagtaaleel iyo canjeel baa ragiini jira saakana waxa leedahay dawladda raac dawladda walba waa raacsanaa ma diidanayn kana ilaahay baa igu qasbo kootadan la leeyahay deegaankan la leeyahay dalkan la leeyahay ma garata mudana ma wasiir oo senator wax Jubbaland noo horseeda adaa u horeeyay
oo dalka u horeeyay wax Jubbaland noo horseeda waana kugu raacnay halkan markaa timid waa kugu ayidnay waa kugu sacabtinay iyadoo garbaaray diidan tahay baan kugu sharafnay oo gadoo dhan sanka kaaga toloo ku raacina dawladana wax nooga maad qaban tanna wax nooga maad qaban bil calaag wax noo qabta hadaydan wax noo qabanayn gaajo cad maryacad baan nahay iskukaana dilina war gobolkan waxa ka dhacay 10 maalin dagaal baa ka dhacay waxaana lagu dilahayay Jubbaland diida haddana waxaad nagu dilaysaan Jubbaland sheega war gaajo maryacad baan nahay waa socol laho cambuulada saxan baan ku wada cunaaye been han doo sheegina waa billahi tawfiiq